shirkadda xawaalada amal laanteeda buuqoodle ayaa lacag dhan $5,000 ugu deeqday dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ee haatan lagu daaweynayo xarumaha caafimaad ee ku yaala buuqoodle lacagtan ayaa maamulka shirkadda amal ayaa waxa uu ku wareejiyay gudida gurmadka caafimaadka ee buuqoodle oo iyagu hawlahaasi u xil saaran ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda amal banki buuqoodle Sheekh Mubaarak Xuseen Sugule waxaana sida oo kale Aqal Maxamuud Cabdiraxmaan oo kamid ah xubnaha gudida caafimaadka ee buuqoodle gudoomiyaha caafimaadka ee buuqoodle Cabdifatax Maxamed Cabdille Cabdicatiif Garasoofe iyo sidoo kale waqtigan hadeer ah kaga qayb gashay xanuunkan dhacdooladka asbiyoodka ah ee buuqoodle ku dhuftay lacag $5,000 ah oo loogu talagalay dadka walaalaha ah ee dhibaataysan in wixii lagaga qaban karayo ay u qaban kartaa lagaga qabto ayaa mataqaanay lacagta loogu talagalay lacagtaas waxaan ku wareejinayaa maamulihii amal bank buuqoodle isagoo u garab fadhiyo qasmatigii xafiiska Saciid Maxamed Cali oo garab fadhiyo gudida abaaraha gudida caafimaadka gurmadka caafimaadka gobolka Cayn gudidaas oo ka kooban 9 xubnood hawl darteedna isugu iman kari weyday oo hadda qaarkii nala fadhiya ay kaceen markii laga soo qayliyay hawl emergency ah ilaahay mahad iskale waxaan kaloo mahad u celinaynaa shirkadda Amal Express guud ahaan shirkadda Amal gaar ahaan qaybteeda buuqoodle xarunteeda buuqoodle lacagta aan ka guddoonay $5,000 oo ay ugu talagaleen say noo sheegeen in wax lagaga qabto xaaladda caafimaad ee ka jirta magaalada buuqoodle iyo deegaanka hoos yimaada intaba baahida caafimaad oo aad u badan oo xanuunkii maalinba maalinta ka dambaysa kordhayo maamulka shirkadda Amal waxaan leenahay jazaa ilaahay khayr siiyo waxaan jecelahay maxaadinahay wixii kale odayaasha ayaa yiri waxaan jecelahay ummadda caalamka dawladaha iyo cid kasta oo daneeya arrimaha bini'aadanimada inaan hal qodob u sheego haddii aan nahay gudida caafimaadka bahdi caafimaadka deegaanka odayaashii ka gobol ahaan totally wax aan ku filan ilaahay subhanahu wa ta'ala shirkadda Amal waxaan runtii uga mahadcelinaynaa deeqdaas iyo taakulada ay walaalahooda xanuunsanaya ay ku taageereen guddidu waxay soo jeedisay guddida caafimaadka gobolku mashruucaasoo halkudigiisu yahay daweyso walaalka Xuseen Xasan Cadde raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland buuqoodle